السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان داودياشا كسوغن أدونكي عالمكو إذن وحن نجد داوانيسان برتا يوتيوب كا وريا عطو شري فضلا هدي آد نوغو عصوبتا جنال كان سبسكرايب لايك كومنت يا لغا حزدين إن مانتو وحا إلي جوگتو عائشة أوفيشيال أو جوار عان إسلامركانا كسو بيرتي إن جروب كان إن عائشة إن هورتا أصحابتم عدليدا أولا. السلام عليكم أصحابي والسلام ميل كستي عنك إيه جوغان برتا أي يوتيوب كا وشرك ما أنت أكفر يورت يا هذا ما أنت أي مرتخالسي وما سنتين ما دام وقتوش أنكو صبيري waan gartay sidaad u jeedaan Aisha maanta waxay ka dambeeyay ay ka mid tahay oo maantana waxaan idin soo diyaarinay barnaamijyo aad u xiiso badan mahmah afmay way noo soo socota laakiin Aisha su'aalo nolosheeda ku saabsan ayaan weydiin doonaa Aisha waxa tahay gabdhaha ugu caansan magaalada Jowhar haddana waxaad isticmaashaa aaladda TikTok-ka goormee ay kugu dhalatay inaad TikTok isticmaasho أنا تيك توك وحنا استمعها بالله ولا بكون إيه توني سجالك. وانجرت أنت أب استعمال اسمها أخوض أو أكلا كلن طيب بالشوين. أصحابته وحبنا غلط ما مروك سو عينا يا مروك سو أمانة يا. ما أنا بقى سو جفا يعني لما سو مالي بس كيسي حال ده. مركا جفوق حتى أقول ريا. وانجرت عايش إيش لواد وحيد تهي. ما حد جعلها إن المستقبل كجات ما دام أتاخف عنها هذا براه بالشدة أدلى وجرنيه. أنا وحن جعلها يعني هرمركي إنها سيكارو يعني نولف يعني ما دام هذا سجوكنا جوهر هرمر بدر هذا جعلنا أوت كينا وحسر. وان قلت عائشة أضو عدك الصاروخ سؤال سدحد وحيتها محاك ولا يابك بدنا إيه كسومري يا بدنا صومر يا بدنا ديك شكان بس وعطوا شربوا يعني هرت ويا بدنا نحن أدون كله جعله من سنة بحي ما عرفت صفي عنه يعني نمك أسكت كسي والله ما الله كذا أكبر اوكي نمكاس يعني نينا هذا كهر ويا بدنا نينا جعل هاي مثلنا عمال ادلا دك اكتكاي نمكاس هذا مخلتي اك بسوابه مسيره لكن هذا ولا انا سومان ادونك ولا هرمر عائشه ما دام الياب ارagtay mana xasuusi kartaa sheekada kugu farxad badneed ama arinta kugu farxad badneed ee ku soo martay maalinta igu farxad badneed oo adduunka igu farxad badneed maxay maalinta aan dhalay kartay waan gartay maalintaas ay farxad waan gartay Aisha hadda waxaad ka mid tahay teamkan waxa halkan ku xiran asxaab aad u fara badan oo ku daawanaysa haddana aad u xiisayso barnaamijyadaada markii ugu horeysay oo aan wareysi kula yeelanaya ay tahay maxaad dareemaysaa maadaama in badan aan isnaqaanay haddana maanta toos u fadhina maxaad leedahay marka asxaab maanta waan faraxsanahay horta asxaabtayda qaaliga maadaama maanta ay jimcaad tahay ay soo galayso galab jimco oo cadoo sharci fadhiyo saayna waan faraxsanahay farxadeenu ma bala qayaasi karo waan gartay Aisha waxaad sheegtay inaad aad u faraxsan tahay asxaabta waxyaabaha aad caan ku ahayd aad ku soo jeeda jirtay mana xasuusi kartaa waxa qof walba waxa uu ku soo caan baxay shay waxa aad ku caan tahay oo ay asxaabta aad u xiiseynayaan يعني TikTok kale TikTok maalin video galina يعني video ma codkeena ay tahay marna ay tahay inaa muuqaal oo xiisa aad soo qaadan Aisha ma jirta barnaamij ugu qusul badnaa aad samayso oo asxaab badan ay kugu amaanay mana xasuusi kartaa marka ko TikTok ku biiray maxay mar oo maqal leeyo tumaay waan gartay oo aan dhigay video anoo maqal leeyo tumaay markaas ay ugu yaabadneed waan gartay Aisha oo leedahay baar kalamaad keen man keenin ilaa hadda waan gartay markaas waa keenaha insha Allah ugu dambeyn maxaad leedahay asxaabtana daawanaysa maadaama ay maanta tahay maalintii ay midoobeen Aisha iyo Ato Shari oo ay halkan asxaab badan naga daawanayaan oo keeni doona barnaamijyo sheekooyin riwaayado mahma waad ogtahay halkan inay tahay goob shaqo oo aan anaga shaqanayo go'onta oo asxaabta mar uun wax u keenin mar riwaayada mar jaalanji
marba waxaan sameynaa Soomaa mar walba garabkiina taaganahay insha Allah waa tahay asxaabtana daawanaysa intaas anoo joogo waraysiga Aisha barnaamij kale oo aad u xiiso badan ayaa noo soo socda oo ku saabsan maahmaah af may ah aadii malaay ayaa maanta soo fadhiisan doona marka janalkan hadii aad ku cusub tahay riix gambaleelka subscribe like comment share yaa nagala xasdin asxaabta kale gaarsii ku saara hadii oo gacmaha holgeysi luqta ku saara xitaa warar xitaa Aisha way akhri doontaan sidaas oo la socdo insha Allah odayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkeennii aadka maanta u xiisada badnaa haddii aad aragteen Aisha oo tiimka kusoo birtay oo su'aalo aad u xiiso badan la weydiiyey oo nolosheeda ku saabsan haddana waxaana la joogo aadan cabdigarac canshuur oo ah kaamiramaanka janalkan ahna kaamiramaanka khaaska ah ee ka shaqeeya waxaan weydi doonaa su'aalo uu noo soo diray abwaan aad u weyn oo lagu magacaabo Ciise aadan Cusmaan oo ku magac dheer abwaan ufurow marka aadan su'aalaha maanta af may ay ku baxayaan soo dhawo horta wamaasanta adigii waliba daawadayaasha oo ku xiran channelkan wariyaha Tooshare waxa leeyahay maalin wanaagsan jimca wanaagsan waa maalin qurux badan runtii waxa idin leeyahay maanta su'aasha xigto oo ninkan oo idin sheegay waxa qayb ka noqon doono su'aal ayuu ugu weydiin doonaa af may waxa idigu turjumi doonaa maxaa tiri may maxaa tiri ma okay marka waxay noqon doontaa maxaa tiri ay idigu turjumi doonaa insha Allah runtii dhagihiina fura ko dhamaan bulshada ee markaas ku xiran channelkan ama oo jecel inay ka mid noqoto teamka ee wariyaha Tooshare waa jago badan ayaa ka banaan oo soo dhaweynina kolba lambarada shaashada ka muuqda ayaa nagala soo xiriiri kartaan hadii aad u baahan tahay inaad ka mid noqoto teamkan kolba ma noqon doono kaliya shardiyada inaad buuxisaa shuruudaha markaas yani looga baahan yahay teamka qofka inuu markaas uu buuxi karo kolba waan ku horkeeni doonaa haduu rabbi ka noqdo hadii markaas aad jeceshahay in markaas nagala soo qayb qaadatana waan ku soo dhaweynaa meel walba dunida aad ka joogtaan Soomaali iyo caalamka idil aragti hadda noo haysaan waan soo qori kartiin marka waxaan gali doonaa su'aasha ayaan bilaabi doonaa dhagihiina fura aadano su'aasha koowaad waxa ay tahay jinkala dheel wana ku dhuglugnaw aaluuda jinkala dheel wana ku dhugnuglaw okay su'aasha koowaad oo leeweydii waxa kamid ah waxa idigu tarjumaa waayo maadaama af Ingiriis ay ahayn laakiin may maxaa tiri waay marka maxaa tiri aan idigu tarjumaa waxa la dhahay jinka la dheel oo yaani qufaca la dheel muxuu ahaay kana si dhuglahaa marka lagu leeyahay waxa qayb ka noqon doono kasi macna ka fiijigna oo masama ka aqlabadii oo kale laakiin yeesan ka noqonin jinka la dheel oo yaani adigina iskorkaaga ku baanshaalo su'aasha xigta hay Atash su'aasha labaad waxa ay tahay lo lugteed hore iska biiga fiyaasi lo lugteed hore isku biiga fiyaasi okay waxa lagu jeedaa tusaale lo'da markay biyaha cabayso kale waxay sameeysaa inta badi in ay markaasi lugaha ay nunuxjiso ko ido biyaha ay horyaalaan ay isku dayaysaa in markaasi lugtii ay biyihii markaas ay u socotay cabilaheed waxay ku wax gafisaa lugteeda horo maxaa ugu celi lugteeda horo isku biiga fiyaasi marka noocaas lagu jeedaa waa maasantii hay su'aasha saddexaad waxa ay tahay hilib xisaab la'aan dhagaagee okay hilib xisaab la'aan dhagaagee waxa lagu jeedaa qof oo markaas yaani oo aad u cayilsan oo markaas ah qof markaas weynaaday xisaab la'aan ayuu hilibka iska qabtay marka su'aasha saddexaad waa taas haye su'aasha afraad xigta su'aasha afraad waxa ay tahay hadii habada kimbeen sheegto tabartaada ayaa kiin run sheegi doona hadii aad isku malayso in markaas dadka dhan ka aqli badan tahay ama ka xoog badan tahay waxa ku soo reeba doono tabartaada marka su'aasha afraadne waa taas haye su'aasha shanaad oona su'aasha ugu dambaysa barnaamijka waana su'aasha ugu adag waxa la leeyahay laan aad adigu dhurayso lugsaarka ma dhuraas okay ugu celi su'aasha laan aad adigu dhurayso lugsaarka ma dhuraas waxa lagu jeedaa idane waxa la leeyahay
tusaale waxaad cunaysaa raashin ama cunto kale ayaad cunaysaa tusaale haddii aadan dhihin qofka saaxiibkaaga kale waxaad leedahay soo dhawow haddaadan dhihin qofkaas ma cuni karo laakiin haddii aad soo dhawayso tiraahdo walaal macaan soo dhawow waxaan isticmaalayaa waa cunto ama waa hilib sidoo kale markaas ayaa laga yaabaa dabcan inuu ku imaado kula cuno waa su'aaleeni waana intaas asxaabta leeyahay subscribe-ka like-ga share-ka waa xaqiina waxaan naga ayaa mid orto dad badan ayaa wax noqday wada jir noqday Caash official hadii ay ahayd jirto qof kaliya waxay noqotay qof markaas garabkeeda la taagan yahay oo mar waliba barnaamijyada inta ka baxmay walba tultulaar ay ku noqdaan insha Allah haya Atoosh barnaamijka su'aalaha waxaan naga caabiyay ama gacan weyn ka geystay abwaan aad u sare abwaan weyn ilaah baa weyne waana abwaan qaali ah laguna magacaabo Ciise aadan Usmaan oo ku magac dheer abwaan ufurow marka baydhabo jooga muqdisho laakiin degan yahay ciiso hadii aad markaasi barnaamijyadaas kale barnaamij kale xigta waxaan ka rajaynaynaa in markaas yaani aad si toos ah nagala soo xiriiri doonto sida Uriya Atoosh kale sidoo kale wixii kale dhiiri ama maskaxda ku soo kordhina waa rajaynaynaa in markaas sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan taageerayaashana mahad celin way mutaysan yaani siday noo garab taageen sida barnaamijyada horumarkaani maanta la gaarsan yahay waxa na gaarsiiyay taageerayaalka anaga wax baan soo duubnaa oo iska soo gelinaa bas oo kaliya laakiin maanta hadii qof markaas inoo share gareysa Daniel oo ama tusaale oo na bulbuliso ama meelaha qaar noo share gareyso runtii waxaan noqonay dad markaas yaani adduunka ku fiday runtii kala Atoosh waa qofka mar walba dhigtinkii soo sameeyo oo faraha fudud ku soo diyaariyo waa aniga kula hadlayo qodayga iyo Faransa Ahmed Halgamay asigana waxaan leeyahay sina qeyr Allah si waa ninka dumaashideena fartuun dumaashideena fartuun waxaan leeyahay idin sidoo kale laakiin Ahmed Halgamay ayaa gacan ka geystay aad inta badan asigana juhdiga iyo dadaalaha iyo mar waliba wuxuu joogaa Faransa ayuu dalka wuxuu joogaa Faransa marka waxaan leeyahay Ahmedow iyo dadka ku xiran channelka iyo abwaanada aadka noo taageerto Soomaali weynta Soomaali abwaane wixii noo hayaan halii ay noo hayaan iyo halkudhig hadii noo hayaan waa nagala soo xiriiri karaan ama sidoo kale YouTube-ka waxaan soo saari doonaa insha Allah lambar ayaan lagu soo qoro doonaa shaashadaha marka lambaradaas ay toos nagala soo xiriiri doontaan insha Allah kulankan hulkiis xiga waxaan idiga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo horumar wacan like-ta share-ka comment-iga subscribe ka xasdin hadii gambaleelkan ha iloobin tusaale waxaad mugta markaa gacmaha dharal dhaqa kale soolka lugta bujak waa jiifta oo kale mugta wax gaar la adan macna anaga walaalihiina mar walba dhan walba sida u isticmaali karto waa ma sintiin nabaday sidaas iyo nabadgelyo